kaasoo gaadha ayaa korkaaga saaran. sida awgeed waxay culimadu tilmaamaan amaanaadka acdaadaada maalan ishu waa ammaano laakiin maxaad ku isticmaalaysaa wixii sharcigu baneeyey uun wixii kale waa khiyaana khaa'inat al-acyun bay noqonaysaa. gacantu waa ammaano, carabku waa ammaano, caqligu waa ammaano, lugtu waa ammaano, waxoo dhammi ammaanay noqonayaan. markaynu dhan kale ka eegno diinta oo dhammi cibaadaadka salaada soonka waajibaadku saaran oo dhammi waa ammaano. xagga kale markaynu u eegno waa mas-uuliyaadka dhammaantood ka bilaabanta mas-uuliyadda guriga reerku waa ammaano, caruurtu waa ammaano, ilaa iyo laga gaadhayo madaxtinimada ugu sarreysa khilaafat almuslimiin iyo wixii ka sokeeya ama umaradhe ama muluukdhe ama states iyo dowlada niman xukumaya dhe ama shirkad qof xukumaya dhe wax kasta oo markaa mas-uuliyadoo ku saarani noocay doontaba ha u ekaatee xataa shaqadaad qabanaysa ha ahaatee mushaarka qaadanayso wax kasta oo mas-uuliyadi kaa saarantay waa ammaana la rabo inaad u gudato sida ugu fiican. waxaana qur-aanku uu tilmaamaya inay tahay sifaadka ugu sarreeya ee bini aadam lagu sifeeyo honesty. dadka bini aadamka waxa ugu koreeya rususha oo dadka ugu sarreysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka koowaad ee uu ku sifeeyey waxaa ka mid ah ammaanada. walidalik baa nebi waliba maalan fi suurati shucaraa aayaadka isdaba socda markaad akhrido 107 ilaa iyo laga gaadhayo 187 5 nebi meelahaasaa ku jira. nebi waliba wuxuu leeyahy innii lakum rasuulun amiin. dada waxaan idiin ahay rasuul amiin ah wixii loo soo dhiibay xilkeeda qaadayo sidiisa u gudanaya. innii lakum rasuulun amiin. bale rususha cidda waxyiga loogu soo dhiibo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya jibriil sifaadka laynoogu sheegay wax weeyaan alruuxu alamiin muطaacin thama amiin nazala bihi alruuxu alamiin. ilahay wuxuu ku tilmaamaya sifat alamaana inuu yahay mid aamina oo wixii loo soo dhiibay ambiyada sidooda u soo gaadhsiinaya. nebiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waa sifaadku ku caanbaxay xataa qabla risaalati intaan ilaahayba rasuulnimada u dooranin asaadiqu lamiin bay carabi u taqaanay inuu yahay ku credibility uu leeyahay hadalkiisu saadiq yahay run yahay wax la qiimeyn kara uu yahay isla markaana aamina. waxaad ka garan kartaa warkii dhex maray ee imaam albukhaari uu soo saaray ee boqorkii romaniska ka talin jiray heracles lo odhan jiray iyo markii ay kulmeen nimankii carbeed ee gaalada ahaa oo abu sufyaan hogaaminayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqu u kala diray boqoradii dunida ka jiray ee uu leeyahay islaama. dabeetana heracles oo yimi beyt ilmaqdis ayaa waraaqdii u timi kadib buu wuxuu yidhi ninkan yaa garanaya wuxuu rabaa bal ninkan waraaqda u soo diray inuu warkiisa helo. isagu de waa halka maanta dowladaha waaweyne ku jiraan buu markaa dunida ugu jiray. marka qof aan laba garanayn isaga agtiisa ayaa waraaq ka helay. qofkan aniga waraaqda ii soo diray waa kuma buu leeyahy yaa garanaya. waxaa la yidhi qola isku reeriyiin baa joogta magaalada igu yeedha buu yidhi 6 nin ayaa u yimi oo carbeed oo abu sufyaan uu hogaaminayo. abu sufyaan waa nin gaala markaasoo muu islaamin. abu sufyaan markuu nebi maxamed 21 sano meelaha la dagaalamayay buu islaamay. 2 sano u dambeysay ayuu muslim ahaa laakiin 21 sannadood nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo horjeeday. waqtiga kanina markaa waa waqtigii sulxu xudaybiya u dhacay almost waa 19 sannadood bay markaa nabiga is hayaan. 19 sannadood isagoo dagaaladii soo dhex mareen oo beder iyo uxud iyo wixii oo dagaal soo dhaceen ayuu heracles wareysanaya 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo uga jawaabaya. su'aalaha waxaa ka mid ahaa oo uu heracles weydiiyey war ninka kani muxuu idin amraa waxaan uu wada ii sheeg. wuxuu yidhi wuxuuna amrayaa innahu yaamur bisalaati والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة.
أبو سفيان وقال كورم يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي وليمي وحنا وليمي بويل الصلاة لتكده رن لا شيغو دور سنة لا دور سنادو بلانكو أول أوفيو يا أمانة أول قتو وحنا أمروا كاسبيل أبو سفيان هرقل الإسلام مركب وحكو جوابي هذه صفة النبي وحنا دي شيغيسا وصفات كأي نبي يدل هاي مركل وحويدي هل يغدر وحما خيامية بلن فرو ما سمية dadka intuu ballama la galo ma kaga baxaa khiyaamo baabkaasi ma sameeya wuxuu yiri may taana ma yaqaano wakadalika ar-rusul buyiri la yaqdirun rusushuna waxba khiyaamayaan idan waxaynu leenahay waa sifaadka ugu caamsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifeeyey rusushiisii ولذلك النبي وحده عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء ورميدني آمنين بولي يدو أنا هيكو آمني يعني رب السماوات والأرض وعرك إلهي وريقا كيرا waxaan uga dan leenahay qadiyadatan amaanadu qiimaha ay leedahay inta uu gaarsiisan yahay inay tahay waxa ilaahay ku sifeynayo rusushii uu doortay ee khalqiga oo dhan uu ka doortay حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام علماء السيرة وقوة الماما سيدو أمانة أفليني إيجو إصحية وأي الرمان إني الدلان هذا وحي أي أولي بتانا أمانة وهيي كلامه بحثا بين هذا ومركو هجروني وحلا هذا علي وحيابه وربه وحكم ده إنه سيدي بي وحي أمانوين أي قال لهيت إنه كذب وعليه waxaa kaloo ilaahay qur-aanku tilmaamaya ammaanadu inay tahay sifaadka ugu mudan dadka jannada goobta ugu sarreysa ka gelaya jannadu waa heerkeeda ugu sarreeya alfirdowsi laclaa baa la yidhaahdaa firdowse kuwa gelaya ilaahay wuxuu ku sifeeyey tobanka sifa uu qur-aanku tilmaamay waxaa ka mid ah waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun waa kuwa ammaanadooda iyo wixii ballan ay galaan raaca baa la yidhi xoolaha qofka raaca muxuu sameeyaa wuu xifdiyaa wuu ilaaliyaa bahal iyo wax walba waa ka dhowra ilaahay wuxuu leeyahay waa kuwa ilaaliya ammaanadooda iyo cahdigooda dabeetana ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwaas inay ka mid yihiin ulaa'ika hum alwaarisuuna aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun alfirdowsi lacla kuwa dhaxlaya inay tahay fii suurati almacaarij mar kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كدبنا إلهي وحلي أولئك في جنات مكرمون كوا بلن كوديا أمانة دودا إلى لنيا وكوا إلهي بولي جنوين لغو كرامي لدجينيو إذن أيها الأحبة أمانة دو دينها نالكاسي شوفتا رسوشا لغو سفايي مؤمنين تكوي لغو سريي لغو سفايي صحابة حتى كوي وغمضنا عشرة المبشرين إن كم يدبوا نبغوت المامية أمين هذه الأمة إنويه أبو عبيدة بن الجراح مؤمن دمانتين إلهي نبغو حط المامية حديث السنن أبي داود كيال الصحيحة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم مؤمن كرنبك وحل إلى هذا قف كيدتك كو آمنا نفتو ديو يمال كودا نبت قليا كاسبا مؤمن دبا waxaa kaloo nabigu inooga warramayaa qisaskii umamkii hore iyo siday ammaanada u ilaalin jireen waxaan rabaa laakiin qisaskaas axaadiista bukhaari ku taalla iyo wixii lamida inaan dhaafo dhanka kale haddaynu eegno ammaanad darradu waxay sifo u tahay ciddii aan diin lahayn amase munaafaqa labadaa eray u fiirso haddaynu dhaha ammaanadu waxay sifo u tahay رسل يا النبي يا مؤمنين تفردوس الأعلى قال أمانة حمضوا أما أمانة درضنا وحي أستان أطهي من لا دين له كي أن دين لهين يقفك منافق الله بدا سي على مضطي يقفك الله إذا آمن بمأها معناه هدو حويان الله بدا صفة مدبال وصفينية ولذلك يحدثك إمام أحمد صوصار الشيخ الباني الصحيح قلت الماميو وحلي أنس بن مالك ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال
nebigu khudbad ma jeedin buu yidhi ilaa iyo khudbad kastoo nebigu jeediya waxaa ka mid ahaan jirtay laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah. anas ibnu maalik wuxuu leeyahay nebi moxamed hadduu khudbadba noo jeediyo erayada inta badan khutabkiisa ka mid ahaan jiray ee uu mar kasta sheegi jiray waxaa ka mid a laa iimaana liman laa amaanata lah. iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn, walaa diina liman laa cahda lah. diinna ma leh qofka aan ballan ilaalin lahayn. iyana waa nooc ammaanada ka mid oo gaar loo sii tilmaamay uun. waa nooc ammaanada ka mid waayo cahdi darradu waa qadri. waa inaad cahdiga khiyaamaysa waa qadr. waalqadru waa nooc min alkhiyaama, waa cagsi lamaana. sida awgeed kaa diin la-aan baa lagu sheegay. munaafiqa markuu nebigu sifaynaya axaadiista caanka aynu naqaano wuxuu nebigu ku tilmaamayaa calaamadaha aayatulmunaafiq buu nebigu yidhi. calaamadda aayad waxa u ah, aayad waa calaama. calaamadaha qofka munaafiqa lagu garto kuwan baa ka mida buu nebigu yidhi. idaa xadatha kadab, hadduu waramo been buu sheegaa. waidaa wacada akhlaf, hadduu ballan qaadana waa buriyaa. hadduu waxyabooho waa khilaafaa. waida tumina khaan buu nebigu yidhi. haddii la aaminana wuu khiyaameeyaa. idan khiyaanadu iyo qadrigu waxay sifo u yihiin ciddii ama diin la ama munaafiqnimo ku dhacday. guud ahaan markaa waxaa layna faray in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. ilaahay wuxuu idin farayaaba alle qur-aanka ku leeyahay ammaanada inaa u gudataan ehelkeedii ciddii iska lahayd inay ammaanada u guddaan. ammaanadaasi wuxuu doonayaa ha ahaato. ammaano diineed ha noqoto, mid mas-uuliyadeed ha noqoto, mid reer ha noqoto, mid caruureed ha noqoto, mid diineed ha noqoto, waxay doonaysa ha ahaato. addu lamaanata ilaa ahliha baa la tilmaamaya. waxaana ilaahay qur-aanka aayaad kale ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha wاlrasuul watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun. war kuwa iimaanka laga helayo laa takhunuu allaha wاlrasuul, alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina. wax kasta oo mas-uuliyad diineed oo aada qaaday haddaad ka baxdo waa khiyaano aada ilaah iyo rasuulkiisa khiyaamaynayso. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha wاlrasuul watakhunuu amaanaatikum ay walaa takhunuu amaanaatikum. war ammaanadiinana ha khiyaamaynina baa la yidhi waantum taclamuun, idinkoo og. yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. aayaadkaasoo dhami فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إلهي وحط الماما يا وروحي أمانة ليدين فري وحي أمانة ليدين ديبي قلت آيات كانوا آيات دين تكور رمي هي مرخاتقة هي وصيادة هي وحي لأنه عودا هنا تسودي وقودته. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حليه 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أفر شيء هداد قصو قنتهي الدون وحي كلها فيدنها كيالنين يعني كوا قول استاد كجرته. أفرت شيء محيي وأفر عكسي وحي منافق الوشيغي. صدق الحديث warka inaad runta ka sheegto. wa xifdu lamaana, wixii ammaano ana ama xoolo ha noqoto ama sir lagu sheegtay ha noqoto ama caruur lagu dhiibay ha noqoto ama aqoon diineed oo aad leedahay wuxuu doona ha noqdo. wixii ammaano lagu dhiibayna wa xifdu lamaana, ammaanadana inaad ilaaliso. iyo wa xusnu lkhulq wa xusnu lkhaliiqa riwaayo kale dhaqan wanaagsani iyo wacifatu lmaطcam xalaal miirad. waxaad cunayso waad iska hubiso, waxaad liqayso waad iska hubiso xalaal iyo xaaraan wuxuu yahay. si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam
ina alkhaazin alamiin qofka xoolaha loo dhiibo khasnad hayaha aaminka ah waa kee wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka bixiya wixii la faray isagoo aan kala nuqsaamin hadda waa khasnajiun isagu shaqo kale kuma leh laakiin waxaa la yidhi khasnajiga aaminka ahi waa ka waxa la faro aan kala reebina si fiican u bixiya isagoo weliba ka raaliya buu nebigu yidhi isagoo u dhiibaya ciddii la yidhi sii hadduu sidaa yeela buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa axadu lmutasadiqiin buu isna ka mid yahay kuwa wax sadaqadaystay buu ka mid yahay bimujarad ammaanada inuu sideedii u gutay kaasheerka u ahaa ee sidii wax la yidhi u bixiyo qura uu u bixiyey ayuu wuxuu ku yahay buu nebigu leeyay qof isna wax sadaqadaystay qof isaguna wax sadaqadaystay markaa soo koobo ammaanada wuxuu nebigu gaadhsiiyey xataa inay ka baxdo mas'alada wajazaau sayi'atin sayi'atan midla haadi xumaha haddii qof xuma kuu geysto waxaad xaq u ahayd intii in leg inaad u geysato waxay yidhaahdaan midharhka laga istinooday ee ay qurux badan tahay inaad raacdo waxaa ka mid a kastoo fuqahadu markay fiqi ahaan u eegayaan hadal la tiltilmaamaan laakiin xadiidkani wuxuu leeyahy addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak kii ku khiyaameeyey ha khiyaamaynin buu nebigu leeyahy u fiirso xadiidkan markaasay fuqahadu waxay isweydiiyaan ninkii xoolahaaga dhacay ee aada og tahay xoola baad u dhiibtay uu kaa dhacay hadhowba adna jaanis baa ku soo maray xoolo uu leeyahy inay ku soo maraan adna ma u jari kartaa ayay fuqahadu isku taagan yihiin oo qowla leedahay may khiyaano qof muslima umay bannaanayn inaad adna tidhaahdo awal baan dee wax igaga maqnaayeen anna in baan goynayaa ayay fuqaho badani leeyihiin maye taasi ma jirto ma samaynaysid xadiidka daahirkiisuna saasuu tilmaamaya walaa takhun man khaanak kii ku khiyaameeyey adiguna ha khiyaamaynin waxaan leenahay markaa ammaanada majaalaadkeedu waa tiro badan yihiin mid dadku u wada yaqaanaa inta badan oo wata xoolaha xoolaha haddii lagu dhiibo inaanad waxba adigu si gaara uga isticmaalin ama sidii lagu yidhi si aan ahaynba inaanad u isticmaalin taa dadku inta badan waa yaqaanaa inkastoo soomaalida agteeda xooluhu masiibo ku yihiin laakiin balan waxyaabo badan tilmaamno axaadiistu si sariixa ugu soo aroortay inay ammaano yihiin مثلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن قفك تلك ويدية هو كأمين قفك تلك ويدية إن أنبسوا مالك لا ضد المامتا وحويا وخيانة قفك استوى مال تليك وين ندتك اللجوينين دست هذا xisbigani kiini maahe meel darana ka dhaceen talada maqluubka ugu dhiib ama ururkani kiini maahe talada maqluubka ugu dhiib ama taajirkan waa yaro loolamayseene ha u tilmaamin halka faa'iidada ku jirta ee waddo kale u tilmaam ama wuxuu doona ha noqdo qofka wax ku weydiiyey ee tala ku weydiiyey waa qofku aaminay إذن إن أدمال عدلا أتلمامتا وهو نوع من الخيام نبو نبو كتلمامي عليه الصلاة والسلام وحيابا ونبو أمانة دا كتلمامي وحاكمي دا دادكو هداي شاكا قاركو شاكايستان وأمانة بو نبو لي المجالس بالأمانة بو نبو لي المجالس بالأمانة دادكو فرديا دا قار كي أيشان وأمانه بل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كسيت المامية نكو مركو وركو كوشاقيا هدو هريرا يرأيغو حتى هدانو كورن ورهوي أركا قري سيدا سكويا هي أمانه النبي عليه الصلاة والسلام عليه إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة هدو غفور انتو كوشاقو هريرا اسكا ايغو
khalaas waa ammaanaya inaad sheegtaa kuuma bannaana xataa haddaa qofka isqabataan soomaalidu waxay caado ku leedahay marka hore waaba laga yaabaa wuxuu u sheegay inuu hayo laakiin haddii xurgufi dhex marto waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo aadna ku xumeeyo wax kastoo aad ka ogeyd oo qofkan war kaa soo gaadhay amaad ka haysid inaad adna akhrido idan waxaasoo dhammi waa ammaana waxa ammaano ah waxa laaliya wixii shaqo laguu diray ama adigu aad iskaa u tidhi anaa qabanaya ama aad bil ajri ku qabatay kay doonaysa ha noqoto mar haddaad mas-uuliyadda qaaday shaqada iyo waxay sir leedoo dhan waa inaad u haysaa u ilaalisaa waxay culammadu yidhaahdaan abibakar markuu zayd ibnu thaabit u dirayey qoraalkii qur-aanka inuu ururiyo muxuu ku yidhi innaka rajulun shaabun caaqil laa natahimuk waxaad tahay nin dhallinyaro oo caqli badan oo aanan tuhmaysan yacni aamina oo xilkaa la saaray sidiisa u gudanaya sidaa ogeed bay culammadu waxay yidhaahdaan marka horeba haddaad mas-uuliyad hayso dadka aada mas-uuliyadda u qaadanayso soomaalidu waxay ku qaataan qaraabo kiil ama indhagarad ama saaxiib ama wixii la mid ah laakiin waxay culammadu yidhaahdaan waa ammaana walidaalika baa qur-aanka dhowr meelood waxaa ku soo arooray dad shaqo loo dhiibayo oo labadii hablood ee nebiyullaahi muusa uu xoolaha u waraabiyey aabbahood markay la hadlayeen waxay ku yidhaahdeen inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin cid shaqadan aada u dhiibto waxaa ugu fiican qof qawiya qawigu waxay dhahdaan waa alkafaa'a quwadu hadba baabkaa la taagan yahay waxeedayd meel accountant looga baahan yahay inaad qof kale u dhibto laysa biqawiyin halkaa accountant unbaa qawi ku ah idan quwadu waa shaqadaasi wixii ay u baahan tahay kafaa'adeeda bay yidhaahdaan waa qofkii u cuntamayey ammaanaduna dee aqoon kasta uu leeyahay qofku haddaanu aamin ahayn qiimo ma leh saa ogeed baa wuxuu labadan gabdhood tilmaameen ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin ilaahayna ma tacqiibine warka sidiisii buu u daayey sidii ay gabdhuhu u sheegeen bale nebi yuusuf ninkii boqorka ahaa markii loo keenay muxuu yidhi iituunii bihi astakhlisu linafsi falama kallamahu qaala innaka alyawma ladayna makiinun amiin wuxuu ku tilmaamay agtooda inuu yahay mid amiina sifaadkii uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inuu amiin yahay markuu nebi yuusuf shaqada dalbanayeyna wuxuu tilmaamay inii xafiidun caliim xafiid yacni amiin ilaahay wuxuu kaloo qur-aanka ku tilmaamayaa xataa qolyaha aynan araga inaga qarsoon nebi muuse markuu shaqo gelinayey qolo jimana baa nebi sulaymaan alla u sakhiray dabeetana wuxuu yidhi yaa gabadhan carshigeedii keenaya gaaleeda soo socota sariirtii boqortooyada cifriitun min aljinni baa hadlay baa ilaahay yidhi cifriit jinka ka mid a ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik inta aanad meeshan ka kicina shaqada ku jirto ayaan kuu keenayaa buu yidhi laakiin muxuu sheegtay mu'ahalaadku shaqadaa ku sheeganaya waa maxay wainii calayhi laqawiyun amiin kafaa'adaana mid le baan ahay buu leeyaho shaqadaa qaban kara waxaan kaloo ahay mid ammaano leh midaan wax khiyaamaynin idan waxaan leenahay ammaanadu noloshoo dhan bay gashaa waana ka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya ina acradna alamaanata in loo soo bandhigay samada iyo cirka iyo waxaasoo dhan culammadu waxay dhahdaan ikhtiyaar baa la siiyey waayo masaa'ilkii aan ikhtiyaarka la siinin tawcan aw karha markii la yidhi dee waa kuwii ateecay laakiin masalada tan ikhtiyaar baa la siiyey ikhtiyaarkii la siiyey doorasho ayaa la siiyey
faashfaqna minha baa ilaahay yidhi waa ka cabsadeen waxamalaha alinsaan bini aadamka ammaanada qaaday baa la yidhi bini aadamkii qaaday laakiin maxaa lagu sifeeyey ammaano qaadistu nimaan labadan inta badan buu ku sifaysay weeyaan innahu kaana daluuman jahuula ammaanada labadaa sifo dad kale uunbaa lumiya inuu marka horeba daalimiyo u badheedhay ama aqoon darra inay geyso jahli mas-uuliyad uu qaaday uu jaahil ka yihi mas-uuliyad aanu tabiicaadkeeda xambaari karaynin inuu isku qaaday ama inuu markii horeba ahaa maxay daalim uu ahaa wuxuunbaa ilaalin karaa ammaanada labadan cagsigooda qof aan daalimna ahayn caalimna ah aqoonna waxa kanu leh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markaa aakhiru zamaanada ama wakhtiyada dambe mawaasiinta bini aadamku intay qaldanto oo uu fasahaado ama se xumaado valueskii dadku ay aaminsanaayeen waxyaabaha soo bixi doonay ugu waaweyn inay ka mid tahay masalada tani sayaati cala annaasi sanawaatun khadaacaat buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixu ibnu maaja bini aadamka waxaa ku iman doona sannado khadaacaat uu nebigu ku sifeeyey oo sannadaha kan maxaa dhacaya sannadahan waxay la iman doonaane bini aadamka dhaqankiisii baa isbedelaya maxaa ka soo baxaya markaa yusadaqu fiiha alkaadib buu nebigu yihi beenaalaha waa la rumaysanayaa qofka runta sheegayana waa la beeninayaa khaa-inka baa la ammaano wax lagu aaminayaa loo dhiibanayaa kuwa amiinka ana waxaa la odhanayaa waa dad xun umamka arrimahoodana waxaa ka hadli doona alruwaybida kuwa uu nebigu u bixiyey u fiirso wakhtigan waxaa caan noqon doonta buu nebigu leeyahay qaar la ogyahay inay beenaalayiin warkooda in la dhegaysan doono inta badan dadka horbooda ee casrigan dambe siyaasaadka iyo waxaan ka waramaa waxay sheegayaan oo dhamme been bay u badan yihiin uu isna og yahay dadkuna og yihiin waxaasaan qaban doonaa kan baa la samayn doonaa halkan baa laga bixi doonaa waxa uu qoray ee buugga ku qortay iyo wuxuu sheegayaaba isna wuu ogyahay inaanay runtii ahayn intooda badani waxaa laga yaabaa midmid daacada inay ku jiraan laakiin inta badani isna wuu ogyahay inaanu run sheegaynin dadkuna iyagoo og inuu beenaalaya bay rumaysanayaan kow kuwa runta sheegayana waa la beeninayaa buu nebigu leeyahy waxaa kaloo intaa raacda waa waraabo hilba ku rara ma maqashay soomaalidaa tidhaahdaa khaa-inka ayaa lagu aaminayaa mas-uuliyaadkii qof la ogyahay inuu khaayiyey laakiin waxaad rumaysantahay khaa-inka dee inaad toltiine soo dhaca isaguba had leedahay waxaad u ololeynaysaa ee aada u wadaa waxaad rabtaa mid tolkaaya inuu wax dhaco naarta galo socanka ma aha mid tolkaayaad naarta la rabtaa marka kanna waa khaa-in adigoo ku og baa maxay ayaa la aaminayaa kuwa aaminka ana waxaa la odhanayaa waa tuug waxba loo dhiibi maayo intaa waxaa ka sii daran oo uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam umuurta caamka ee dadka waxaa ka hadli doona alruwaybida waxay saxaabadii ku yidhaaheen yaa rasuul allah wama ruwaybida ruwaybidadu maxay tahay dabeetana nebigu wuxuu yihi waa alrajulu taafih aw alfaasiq aw ka waa dadka liito oo dad ummadda hoggaan u noqdo arrimaha ummadda dadaan u cuntamin baa ka warramaya that means mas-uuliyaadkii ummadda ee cid ammaanada qaadi kara u baahnaa xataa kuwa ka hadlaya ka warramaya wuxuu nebigu ku tilmaamayay inay yihiin tawaafihu nnaas dadka kuwii ugu liitay ama dee inaga qofkii shaqo waayaa shaqadan qabta socankaa maaha qofkii shaqo helaya ee xoogsan karaya soomaalida wuu xoogsadaa laakiin ninka xoogsiga kale ka soo xidhmo ayaa yidhaahda reerkan uu amaamadda u qaadanaya ama baabkan u gelaya
nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka cabsi qaba wakhtiyada iyo sida ay u faafi doonto wuxuu soo warramay khayru lquruuni qarni qarniyada qarnigaygan baa u fadli badan buu nebigu yidhi centuriska kanaan anigu noolay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dabeetana ka ku xiga dabeetana ka ku xiga saxaabiga xadiidka sheegaya wuxuu yidhi mid kale inuu sheegayo in kale ma sii garanayo saddex buu sheegay mise uu ka kordhiyey markaasuu dabeete wuxuu nebigu yidhi ina bacdakum qowman yakhuunuuna walaa yu'tamanuun idinka gadaashiin dad baa iman doona wax khiyaamaynaya oo wax duul la aamina aan ahayn xadiidku uu sii wadaa calaamadda u dambaysu maan idiin sheegaya uu tilmaamay wuxuu ku sheegay inay dad khiyaamalowya yihiin wuxuu kaloo nebigu ku sheegay khiyaamalowga dadkaa ahi haddana inay yihiin buu nebigu yihi dad buurbuuran wayadharu fiiha saman buu nebigu yihi calayh salaatu assiman yacni tuugnimadaa ka muuqatuu nebigu tilmaamaya waa dad wax khiyaamaynaya oo aan la aamini karin laakiin haddana ah buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wayadharu fiihim assimanu baruurtaa xoog uga muuqan doonta buu leeyahy wakhtiyadaas nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa nin reer miyiya soo galay isagoo nebigu saxaabada la hadlaya markaasuu yihi yaa rasuul allah mata saaca qiyaamuhu waa goorma nebigu muu eegine warkiisii buu iska watay saxaabadii meesha fadhidaa hoosta ka guuxguuxoo qaarna waxay idhaahdeen waar nebigu malaa ma maqlay ninkani wuxuu leeyahay qaarna waxay idhahdeen mee wuu maqlaye wuu iska daayay laakiin nebigu warkii uu hayay calayhi salaatu wasalaam markuu dhammaystay ayuu soo jeestay markaasuu yidhi ninkii su-aasha waday mee waa aniga buu yidhi mata saaca buu leeyay qiyaamu goormu dhacaya nebigu qiyaamu goortu dhacaya kama warhayo oo ciidimo oga ilaahay unbaa suu qur-aanka ku sheegay og laakiin calaamadihii loo sheegay wax ka mida buu nebigu u tilmaamay wuxuu ku yidhi idaa dayicat ilamaana faintadir isaaca ammaanadu hadday lunto oo la ammaano waayo qiyaamihii fila buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana ninkii su-aal kaluu nebiga ku celiyey oo ah kayfa idaacatuha yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow sidee bay ammaanadu u lumaysaa waa qaabkee idaa usnida alamr iyo idaa wusida alamruba waa la soo arooriyaye idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir isaaca buu nebigu yihi arrinka ciddii lahayd cid aan ahayn haddii loo barkiyo ama loo tiiriyo carabta iyo dhaqamada xataa soomaalida qaarkood reer jabuutiya baa leh barkin weyn baa guriga la dhigaa dadka loo dhiga ay ku fadhiistaan barkimooyin ka adag kuwan la barkada ee caadiga ah oo qofku markuu xaafadda yimaado loo dhigo uu ku fadhiisto carabtuna saasay isticmaali jirtay marka qofka barkintaa loo dhigay ku fadhiistay dee arrinkiisagaa loo tiiriyey marka idaa wusida alamru min alwisaada ay idaa usnida alamru haddii arrinka loo tiiriyo buu nebigu yihi cid aan ehel u ahayn qiyaamaha eego markaad aragto dadka wax maamulaya ama dadka horkacaya ama mas-uuliyaadka qaadayo aan ahayn kuwii xaqa u lahaa aan ahayn kuwii mas-uuliyadda qaadi lahaa markaa qiyaamaha fila buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdaan imaamu albukhaari raxmat ullaahi calayh xadiidkan wuxuu ku soo arooriyey bay idhahaan fi kitaab alcilm kitaab alcilmi iyo ammaano maxaa iska galay xadiidkan markuu soo aroorinayay wuxuu ku soo arooriyey baa la yidhaahdaa kitaab alcilmi kitaabka uu cilmiga kaga waramayo ibnu xajar markuu sharxayo isna waxa uu ku tilmaamayaa munaasabada xadiidkani uu la leeyahay xadiidkan matnigiisu noocaaya uu masaladan la leeyahay waxa weeyaan waktiga kan jahligaa badan doona cilmigana waa la rafcinaya weeyaan buu leeyahay yani haddiiba ay dhacdo dad aan meesha u cuntamin in la geeyey meeshu waxaa ka jira jahli iyo aqoon darra ka jirta ayuha alaxiba ammaanada ilaahay qur-aanka isagoo ka waramaya niman ahlu kitaab ah oo la ceebeynayo ceebaa qur-aanku uu soo arooriyey ahlu kitaabka waa tiro badan yihin laakiin
qolo sifada ammaanada wax ka mida laga helay ilaahay waa u qiro waa u tilmaamo nimahan ahlu kitaab baa ilaahay yidhi ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك أهل الكتاب وحكم دبا إلهي يري قار هداد قنطار حول أولي بتوادقوا إيمانيس آمنة وحكى له كم دبا إلهي يري قار هداد دينار أولي بتوادقوا صوغارين قارنا قسنا هداد أولي بتوادقوا هينيا قارنا وحي إلهي كتل مامي محي دينار هداد أولي لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ما بحين أيوه ilaa iyo intaad dee xisaab la dul taagantee uun la controlayo la ilaalinayo mooyaane si kale lagaga soo saari maayo waxa meesha jira markaa wuxuu yahay ammaanadu dhanka khayrka haddaad u eegto waa sifadii rususha iyo saalixiinta iyo dadkii hore ee saalixiintaha iyo mu'miniinta jannatulfirdowsa dhaxlaysa ee jannada lagu karaameeyey waa sifadoodii ammaana darrada dhankeeda haddaad eegtana waa ama dadka aakhiru zamanka iyo wakhtigaa imanaya dhibtu jirto oo calaamaadka qiyaamahaba u ah iyo dadka diinlaawa ama munaafiqiinta calaamadooda weeyaan maxaa ina saaran markaa waxaa ina saarani wuxuu yahay qof waliba inbuu mas-uul ka yihi inta badan bini aadamku waxaa caadiya soomaalida mahmaahdeedii ahaa maxay soomaalidu tidhaahdaa takarta saaran ma arkee wuxuu arkaa maxay takarta takale saaran dadkaba malaa inta takarta garanaysaa yar baan u malayn takartu waa baal yar oo xoolaha cuna marka qofku maroodiguba yidhaahdaan takarta saaran ma arkee ka kaleta saaran buu arkay waxay uga dan leeyihiin ceebtaada haddaad arki weydo aad ceebta dadka kaluna aragto waa dhib waxaan uga dan leenahay dadku marka ammaanada iyo waxaan la soo qaado inta badan kuwa kale tasaaran buu arkaa oo madaxda iyo maamulada iyo kuwa waxa saaran laakiin kuwa inaga kaalay adiga taadaa ku khusaysee inagu ammaanada intii ina saarayd ma xifdinay ishaadii dhegtaadii carabkaagii gacantaadii adinkaagii jeebkaagii lacagtaadii caruurtaadii reerkaagii aqoontaadii aduu ma xifdiday ta kale ka saarani aakhira isagaa ilaahay ku xisaabinaya adiga xilka ku saarani wuxuu yahay ee ah waxbaad maanta mas-uul ka tahay aakhirana ilaahay ku weydiinaya subxaanahu wa tacaala waxbaad mas-uul ka tahay ay ugu horeyso naftaadu uu ku xigo reerkaagu uu ku xigo caruurtaadu uu ku xigo jaarkaaga iyo inta kugu xiga ay ka wada horeyso diintaadu adiga mas-uuliyaddaasa ku saaran mas-uuliyaadkii ina saaraa ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunu allaha walrasuula watakhunuu amaanaatikum baa layna yidhi war kuwii ilaah iyo rasuul rumeeyeyow alle iyo rasuul ha khiyaamaynina alle iyo rasuulkii ha khiyaamaynina oo saa u khiyaamaynaysaan watakhunuu amaanaatikum walaa takhunuu amaanaatikum war ammaanadiina ha khiyaamaynina baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala idan ammaanadayna saarani way tiro badantay way tiro badantay caqiidadaada ammaana kaa saaran ee diinkaaga ma barata cibaadadaada ammaana kaa saaran xil baa kaa saaran iyo mas-uuliyad ee sidii rabbi ku faray ma u cibaadaysatay naftaada ammaana kaa saaran ee ma dhowrtay oo naarta ma ka ilaalisiyo wixii lagu yidhi ka ilaali ubadkaaga ammaana kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran ma gudatay idan waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuunkii ma ku sifownaa mise kuma sifowno kuwa ammaanadooda iyo ballamahooda ilaaliya shaqada gaalada u shaqaysaan ama muslim u shaqaysaan ama masaajida ka shaqaysaan waa ammaana ma itqaanisaan ma sugtaan waqtigooda ma u ilaalisaan wixii uu kugu aaminay ma sidooda ma u xifdidaa sidii lagu yidhi u dhaqan ma u dhaqantaa mise waa gaalo waa la yska dhinac marayaa waxoo dhami waa ammaana idan darsigaygu waxaan jeclaa inaan iska soo koobo waxaan kusoo koobayaa wuxuu yahay
nusuus badan oo qur-aan iyo xadiida soo arooray ciddii rabtaa kutubtay dib ugu noqon doontaa oo masaladaa ka warramaya waxaana culammadu tilmaamayaan fii kulli labwaabna inay gasho oo baab aan abwaabta ka mid ah oo aan ammaano gelini inaanu jirin nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dhiiri gelinaya ayuu in badan wuxuu uga warramay xataa umamkii hore dadkii ammaanada lahaa masale wuxuu tilmaamay nin baa nin caqaar ka iibsaday meelahan dhismayaashu ku yaaliina meeshiibuu wuxuu ka helay jara kuusad ama ashuun ama jalxad waxaad u taqaanaba weel uu ku jiro dahab ayuu meesha laga soo qoday dabeetana weelkii dahabkii intuu soo qaaday ayuu ninkii dhulka uu kaa iibsaday buu u keenay wuxuu yihi war anigu meesha baan kaa iibsaday laakiin meeshii dahabkaasaa ka soo baxay dee anigu dahab maan iibsane dhulkaan iibsaday dahabkaaga waa kan buu yidhi ninkii kalena wuxuu ku yidhi war anigu wax ku jirana ma ogeyna dhulkaasaan kaa iibiye adaa isule wixii kuugu jira iska qaado nabigu isagoo tilmaamaya nimankani ammaanaadka say u ilaalinayaanba wuxuu yidhi labadii nin waxay noqotay inay maxkamad isla galaan iyagoo isku haysta adaa leh iyo adaa leh innaga maxkamadeennu maxay ku salaysan yihin anaa leh iyo anaa leh laakiin labadan maxkamaddooda waxay ku salaysantahay adaa leh iyo maahee adaa leh bay isku hayaan kadib baa ninkii u gar qaadayay qaab kalu ugu gar qaado wuxuu ku yidhi caruur ma leedin markaasay yidhaahdeen haa mid baa wuxuu yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy deetana wuxuu ku yidhi labadaa isu guuriyo oo dabeetana intan siiya buu ugu garnaqay labadaa intaa isku dartaan xadiiska bukhaari ku yaalla labadaa intaa isku dartaan buu yidhi dabeetana labada ku sadaqadaysta xadiisku macnaha uu tilmaamaya waxa weeyaan dadkani siday rabeen inay u xalaal miirtaan innaga sharcigeenna waxbaa ka yaalla rakaaska iyo macaadinta iyo waxyaabaha dhulka laga helay iyo axkaam bay leeyihin laakiin markaynu axkaamta ka nimaadno mafhuumkaynu ka qaadanayna waxa weeyaan dadkani ammaanada say u ilaalinayeen ayaa waxay keensatay inuu nebi maxamed uga warramo calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii si uu ugu dhiiri geliyo ammaanadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo nebigu uga warramay nin reer banu israa'iilah oo nin kale 1,000 diinaar ka amaahday markaasuu yidhi markhaatiya ii keen kafaa billaahi shahiidan buu ku yidhi ilaahay baa markhaati inoogu filan markaasuu yidhi haddaba kafiil ii keen kafiilku waa qof dee kafaaladan qaada markaasuu ku yidhi kafaa billaahi wakiilan ilaahay baa wakiilla ku filan run baad sheegtay buu yidhi xoolihii buu u dhiibay ninkii badduu galay xaajaadkiisii buu soo gutay waktigii ay ballameen ayuu wax dib u soo qaada waayey waktigii ay ahayd ammaanada inuu iska celiyo ayuu wax dib u soo qaada ayuu waayey waxaanu arkay waktigii inay dhaafayso deetana nebigu qisadaa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi qori buu soo qaada markaasuu xorday dabeetana lacagtii buu ku guray 1,000 diinaar markaasuu waraaqana raaciyey uu u diraya ninkii intuu badda ku tuuray buu wuxuu yidhi ilaahow adaan markhaatina kaa dhigtay kafiilla kaa dhigtay ninkiina wakhtigiisii way gaadhay si aan ugu geeyo kalena garan maayo ilaahu iga gaadhsii buu ku yidhi intuu badda ku tuuray ilaahi subxaanahu wa tacaala baddii buu ku soo qaaday buu xadiisku tilmaamaya rabbi waa soo gaadhsiiyey ninkii kale oo ayuunbaa badda maalin yimi isagoo eegaya bal ina wax markabi inay soo socdaan oo dee ninkii uu xoolaha ku lahaa wakhtigii waa joogaaye inaynu soo socda buu meeshii yimi dabeetana
qorigan soo caariyay ee baddu meesha kusoo tuurtay buu helay qorigii buu eegay lacagtiisii iyo warqadii buu ka helay والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك رغضة وحكو قرن إلهي ما كنت دارتي وكد دالي إن هلا مركب أن صوفو لو سيان حولها كيكو كانوا وح أن صوفو لنا وان واي إحساسا كوكو صادري إن إلهي كاسو غارسيو أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي على كل حال إلهي سبحانه وتعالى وكجودي حديث كم حنا بيقول شيء يا بلنك أي دتكو قران سيدا دتك صالحين تيجوا إلى لنيين وحنكو سوكوبة يا مركا قصص كساء أروري نبي كساء أروري وتر بدين أحاديث أمانة ذا هي نوعيات كده قال قديسان كساء أروري وتر بدين قرآن كمسائل كاس كساء أروري سدة بنية ستوسبة وكساء أروري وتر بدين أمانات كنا وينغان نرش أردن بيكوتشران وحقف والبصارا مركاسية وبدبادية هدو نقضى مؤمن كاو نبي الشاقي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هدو كسف وبنو بدبادية هديك لنا صفات كمنافقين تيكوي الدين لأنت أي كل عيا فاختر لنفسك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أنا وحوجا وعد قوم أنا دين شجع وحي سؤال ديننا علماء ديننا ويدينسا شيخي نيدي به. السلام عليكم.